ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت. maxamed bin sulmaan ayaa maantay maxkamadda la soo taagayaa gaar ahaan dalka Faransa kadib markii lagu eedeeyay inay ku amartay waardiyaheeda khaaska inuu jirdilo shaqaale gurigeeda ka shaqeynayay. qareenka Amira Xisa ayaa sheegay inay tahay dacwadan lagu soo eedeeyay waxba kama jiraan iyo mid la soo dhoodhoobay. qaanuunka Sacuudiga ayaa mamnuucaya in wax sawir ah laga qaado qoyska reer boqor. Sacuudiga iyo Faransa ayaa leh xiriir dhow iyo iskaashi militari, balse dacwadan ayay suurtagal tahay inay labada dhinac xiriirkoodu ku xumaado. baarlamaanka Britain ayaa loo gudbiyay dacwad la xiriirta islaam naceebka. guddiga muslimiinta ee dalka Britain ayaa hirgeliyay olole ay baarlamaanka uga dalbanayaan in warbaahinta ay sameyso cadaaladda dhanka warbixinada ah. waxay soo bandhigeen qoraallo ama faallooyin gaaraya 10,000 iyo muuqaallo baxay 3 bilood ee la soo dhaafay. 59% ka mid ah warbixinadaas ayaa ahaa kuwo muslimiinta looga hadlayo hab aan wanaagsaneyn. Baarayaasha ayaa helay inay qaabka warbixinada ku saabsan muslimiinta loo tabiyo ay jiraan ama diiradda lagu saaro dabeecado qalafsan iyo arrimo la xiriira nacaybka. waxay soo saareen inay jiraan dhacdooyin la xiriira islaam nacaybka oo lagu qoray qaar ka mid ah warbaahinada. guddiga muslimiinta ee dalka Ingiriiska ayaa sheegay in UK ay tahay dalka ay ku nool yihiin qowmiyado badan loona baahan yahay in dhammaan xuquuqdooda la simo.